السلام عليكم. maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha May sanadka 2022 waxaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulan salaan iyo booqasho ah ku wada qaatay madaxweynaha xafiiska jooga mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. ugu horeynba waxay labada madaxweyne iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalkeena. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu hambaliyeeyay walaalkiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga bariyay in uu u fududeeyo mas'uuliyaddan culus. waxaa madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub. dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay. madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdilaahi Ciise, waxaana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan. madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhambaalo hambaliyo ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15 bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho. dhambalada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku salaysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi. waad mahadsantihiin.